haddii aad doonaysid labadan shay inaad qaybtan kale iska dhaafsiiso sidee ayaa u sameynaysaa qaabkan kale adoo isticmaali doono Adobe Illustrator waxaan sameynayaa waxaan soo dooran doonaa shape rectangle qaybtan ayaa ku dhufanaysaa kadib sidaan kale u soo darajareynaysaa kadib waxaad siisanaysaa markii storage ayaa siisanaysaa ilaa 30 ah kadib markaa waxaad sameynaysaa qaybtan ayaa ku aadinaysaa shift ayaa la qabanaysaa sidaan ayaa u darajareynaysaa kadib waxaad sameyn doonaa 45 degree in la wareejiyo kadib waa soo qaadanaynaa halkaan keensan doonaa kadib kan ayaa ku biin doonaa markaa sidaan kale u soo darajareynaya sidoo kale waxaa la qabanaysaa shift si dhexda loogu aadiyo kadib labada isla dooranaysaa kadib qaybta direct select tool ayaa click siin doonaa kadib qaybtan ayaa waxaa u soo darajareyn doonaa si xoogay round ah u dhigo kadib markaa inta aan sameeytan ayaa kalarka ka bedeleynaa waa dooran doonaa kadib qaybtan ayaa click ku siinaya kalarka ayaa dooran doonaa kadib waxaa sameyn doonaa intertwine-ka si aad u sameyso marka labadooda waa dooranaysaa sidaan kale u dooranaysaa kadib waxaa haysaa qaybta ku qoran tahay object kadib waxaad ku dhufanaysaa intertwine kadib waxaad dhigi doontaa marka make kadib marka intertwine aad doorato waxaa lagu soo saari doonaa baashan yar oo last tool ka camal kadib waxaad sameynaysaa qaybtan ayaa saa u darajareynaysaa kadib waxaa la sameyn doonaa in markaa la isdhaafsiiyo marka qaabkaas fudud ayaa waxaa loo sameeyaa waxa loo yaqaano intertwine adoo isticmaalaya softwareka Adobe Illustrator. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.